kulanti waxaan saaxiibta qiimaha badan meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada macluumaad xiiso leh oo ku saabsan insaanka ama basharka waana macluumaad u gaar ah guud ahaan basharka rag iyo dumar sida isugu wada jiraanba waana macluumaad ay ka heli doontaan mar walbana kiskis ayaan usoo qaadan doonaa howlkan idinkula wadaagi doona waana macluumaad xiiso leh oo cilmi cusub aad ka faa'iidi doontaan kanaalka hadaa ku cusub tahay subscribe saado sidoo kale gambaleelka ku dhusi si wararka degdeg ugu soo dhacana saaxiibteeda la wadaag ugu shardhe warbixinteena dekeesh login hoosar sidoo kale tana waxay su'aal ka qabtid oo macluumaadka ku saabsan hoos inoogu reeban kaaga soo jawaabayno insha Allah qodobka koowaad aan ku bilowno inkastoo aan la soo koobi karin xog ku saabsan insaanka guud ahaantiisa laakiin qayb ka mid ah ayaan halkan idinkula wadaagina maanta ka bogasho wacan insaanka waxaa lagu sheegaa inuu yahay noolaha kaliya ee dhabarkiisa ku seexdo xogta koowaad waa insaanka wuxuu yahay noolaha kaliya ee dhabarkiisa ku socda marka loo eego nooleyaasha guud sida jinka iyo xayawaanka iyo waliba insaanka markii la isku daro noolaha kaliya ee dhabarkiisa ku socda ayuu noqonayaa bu'da isha insaanka way weynaataa ama way ballaarataa markuu qofka fiiriyo ruuxa uu jecel yahay ama qofkaasi bu'diisa noqota qof rag ah ama qof dumar ah noqoto qof aad jeceshahay markaad fiiriso bu'daada isha way weynaataa ayaa la dhahay sida khubarada sayniska ay sheegeen tirada ilkaha insaanka qaangaarka ah wuxuu gaaraa 32 ilkood halka insaanka aanan qaangaarin ama aanan wali da'dii qaangaarka gaarin ay ilkihiisa yihiin 20 ilkood marka aan ku celino tirada ilkaha insaanka qaangaarka waa 32 ilkood halka insaanka aanan qaangaarka gaarin ay ilkihiisa yihiin 20 ilkood muruqa bawdada insaanka waxaa lagu tiriyaa inuu yahay muruqa ugu dheer halka muruqa carabka uu yahay midka ugu adag saynisyahanada waxay sheegeen in khubarada muruqa bawdada ama cajarka inuu yahay insaanka midka waxaa lagu tiriyaa midka ugu dheer halka muruqa ugu dheer ama muruqa ugu adag uu yahay midka carabka ee afka ku yaala jirka insaanka caadiga dhiiggiisa wuxuu gaaraa ilaa 6 litir oo dhiig ah halka biyahana ay gaaraan ilaa 42 litir oo biyo ah sida ay sheegeen khubarada sayniska ma ogtahay in xubinta kaliya ee jirka insaanka ku taala taasoo uusan dhiiga gaarin inay tahay bu'da isha qaybteeda cad isha waxay u qaybsantaa laba qaybood qayb cadaan ah oo cad iyo qayb madow oo aragga soo gudbiso haddaba waxaa la sheegay qaybta cad in uusan gabi ahaan dhiigga jirka isku gudbiyo inuusan qaybtaasi cad gaarin ayaa la sheegay waana magaceeda haddana ma hayno hadday aadna haysid waa nagu caawin kartaa bu'da isha qaybteeda cad magaca loo yaqaano ilkaha insaanka inay tarmaan waxay bilowdaan 6 bil ka hor inta uusan insaanka dhalanin ama qofka basharka intuusan dhalanin ka hor ay tarmaan oo caloosha dhexdeedii ay ilkihii ku tarmaan tarankoodii kasoo bilowda jirka insaanka muruqihiisa waxay ka kooban yihiin ilaa 639 murqood ayay ka kooban yihiin qalbiga ninka iyo qalbiga naagta waxaa garaac yar qalbiga ninka sababtana waxay tahay in mug ahaan ama culis ahaan qalbiga ninka ka weyn yahay midka naagta xawaaraha candhuufta insaanka kasoo baxda markuu hindhisayo waxay gaartaa ayaa la dhahay 160 kilomitir saacadiiba ma ogtahay in sanbabka midig uu ka weyn yahay sanbabka bidix waxaana u sabab ah qalbiga oo ku yaala dhanka bidix xawaaraha neerfayaasha jirka markay maskaxda macluumaadka u gudbinayaan waxay gaartaa in ka badan 250 mayl saacadiiba maskaxda insaanka waa qaybta ugu badan ee isticmaasho oksijiinka iyo tamarta jirka ku jirto taranka cidiyaha insaanka si ay u gaaraan heerkii ugu dambeysay waxay ku qaadataa muddo 6 bilood ah ayay ku qaadataa insaan kasta oo dunidan guudkiisa saaran dhanka carafta uu ka duwan yahay kan kale marka laga reebo mataanaha isku eg ee isla dhashteen qalbiga insaanka markuu dhiigga ku shubayo qeybaha kale ee jirka wuxuu sameeyaa cadaadis weyn kaasoo gaarsiin karo ilaa 6 mitir ama 9 mitir inta u dhaxaysa insaanka wuxuu dhaqaajiyaa 16 xubnood markuu qoslayo insaan walba ama bashar walba rag iyo dumar qofku doona ha aaday mar walba uu qoslayo 16 xubnood ayuu dhaqaajiyaa dhirirka xidigaha jirka insaanka ku jiraan waxay gaaraan 100,000 oo kilomitir waxayna u dhigantaa 2 laab iyo bar wareega dhulka ka kooban yahay waana arrin cajiib ah in dhirirka xididaha jirkaada xididaha ku jiraan
inay gaaraan 100,000 oo kiiloomitir dherer ahaan, haddana ay ka weyn yihiin labalab ee bar wareegga dhulka ka kooban yahay. Waa arrin cajiib ah oo saynisyahanada ay sheegaan. Taasi waxay ka dhigan tahay xididka jirkaada ku jira inuu laablaabmo dherer ahaan. Haddii la dhaho adiga wuu ka sare marayaa 100,000 oo jeer ayuu kaa sare marayaa, laakiinse waa isku laalaaban yahay xididada jirkaada ku jiraan, wayna isku hab samaysan yihiin. Waana abuurka Allah subxaanahu wa tacaala ee mucjisada ah. Qaybta labaad, dumarka ayuu u gaar yahay. Dumarka ayaa celcelis ahaan mid kasta 120 saacadood sanadkiiba kaga baxda inay isku egto muraayadda, taasoo ku dhawaad 5 maalmood sanadkiiba ah. Waxay ka dhigmaysaa 120 saacadood sanadkiiba. Hadday noqoto 5 maalmood sanadkiiba ayaa lagu qiyaasay inay kaga baxdo inay muraayadda isku egto. Dumarka waxay aad u jecel yihiin ninka, waxayna u baahan tahay indhaheeda inay ka akhrisato. Dumarka ayaa waxay aad u jecel yihiin in ninka, waxay u baahan tahay indhaheeda ka akhristo, taasoo marar badan sababta in xaaladda cakirmato, khaasatan markii la isfahmi waayo oo afkooda inay wax ka sheegaan ma rabiyaan. Ninka inuu wax walba indhihiisa ka akhristo ayay doonayaan. Inta badan dumarka way neceb yihiin inay socdaan gacmahooda oo maran, sidaas awgeed waxay markasta gacanta ku qaataan boorso, buug, fure, mobile iyo wax la mid ah. Maskaxda dumarka waxay unugyada maskaxda kala mid tahay ragga, inkastoo maskaxda ragga ay ka weyn tahay maskaxda dumarka celcelis ahaan 9%. Midda ragga ayaa weyn, waxaana isla ekaanshahaas u sabab ah unugyada maskaxda dumarka oo isdul saaran, sidoo kalena ka cuf badan midda ninka. 90 ilbiriqsi kasta adduunka naag ayaa dhimata sabab la xiriirta dhibaatooyinka uurka iyo dhalmada leeyihiin. Ma jirto weynayntaas celcelis ahaan gabar kasta muuqaalkeeda waxay ka fikirtaa maalin kasta 9 jeer ayaa la sheegay. Qiyaastii markii la qiyaasay, gabar walba muuqaalkeeda iyo quruxdeeda 9 jeer ayay ka fikirtaa maalin walba, oo ka dhigan 24 saac gudaheeda. Sida ay tahayna keliya boqolkiiba 2 ayaa isku tilmaama gabdho qurux badan. Intooda badanna in la ammaano ayay jecel yihiin halkii ay is ammaani lahaayeen. Gabdhaha waxay u fikiraan si joogto ah, waxayna ugu daran yihiin markay isku diyaarinayaan xaflad iyo wax la mid ah. Xilligaas oo kale maskaxdooda waxay u shaqaysaa si xawli ah, iyagoo ka fikiraya qaabka muuqaalkoodu u ekaan lahaa. Sidaas awgeed, hadallo dhaliil ah waqtigaas ha u jeedin. Wax kasta oo afkooda kasoo baxaya ammaan ha noqdaan, waayo waqtigaas oo kale gabadha dhaliil uma xamili karto, toos ayayna u niyad jabaysaa. Sida khubarada ay sheegaan, inta badan dumarka kuma raaxaystaan waqtigooda macaan, waxaana u sabab ah iyagoo mustaqbalka ka fikira iyo waxyaabihii ay heli lahaayeen mustaqbalkooda. Fikirkaas ayayna ku dhammeeyaan waqtigooda. Ma jiro hal qaanuun oo USA ka shaqeeyo kaasoo naagta la simayo ninka saaxiibkiisa ah ama ay saaxiibad yihiin. Sidaas ay tahayna, diinta Islaamka ayay markasta ku dhaleeceeyaan in xuquuqda dumarka ay ku tumatay. Sidaas awgeed, qaanuunadooda ama dastuuryadoodana ma jiro hal dastuur oo simaya ragga iyo dumarka inay dhan walba ka siman yihiin. Waana arrin cajiib ah. Qodobka saddexaad ama qaybta saddexaad, isla qaybta saddexaad ayaan sii wadaynaa oo macluumaadkeena. Ma ogtahay in dhegta midig ee insaanka ka wax maqal badan tahay midda bidix, oo waxaa maqal fiican mar walba midda midig? Ma ogtahay in insaanka markuu gaaro 60 sano uu waayo 85% dareenka dhadhanka iyo urtaba? Ma ogtahay in garaaca wadnaha saameyn ku yeesho xajmiga jirka? Tusaale, tirada garaaca insaanka caadiga ah waa 80 garaac daqiiqadii, maroodigana waa 25 garaac daqiiqadii, jiirka ama dooligana waa 700 oo garaac daqiiqadii, halka shimbirta yarna ay ka tahay 1000 garaac daqiiqadii. Marka waxay ku xiran tahay xajmiga jirka uu yahay. Marka haddii jirka uu weyn yahay, garaaca wadnaha wuu ziyaadayaa ama wuu badanayaa, halka hadduu jirka yar yahayna garaaca wadnaha waxaan ula jeednaa hadduu jirka weyn yahay, garaaca wadnaha wuu yaraanayaa. Hadduu jirka uu yar yahayna, garaaca wadnaha wuu ziyaadayaa. Tusaale, shimbirta oo kaleeto 1000 garaac ay daqiiqadii gaaraysaa, halka maroodigana 25 garaac oo daqiiqadii gaarayo wadnaha. Taasi oo ka dhigan shimbirta jirkeeda inuu yar yahay, halka maroodiga jirkiisana uu weyn yahay. Ma ogtahay in ilinta insaanka laga helo maadooyin xanuunka dejisa, kuwaasoo ay soo saarto maskaxda markuu qofku oynayo? Ma ogtahay in ilmaha yar ee markaasi dhasho uu celcelis ahaan maalin kasta ooyo 113 daqiiqo? Ilintuu soo saarana ay ka caawiso inay ilaaliso caafimaadkiisa.
Ma ogtahay in dhammaan carruurta lagu wada dhalo indhahooda oo buluug ah, balse shucaaca qoraxda oo midabada indhahooda ay beddesho, oo markay dhalanayaan indhahooda buluug waaye dadkana ma fahmi karaan, laakiin shucaaca qoraxda ayaa isla markiiba beddelayso indhihii buluugga ahaa oo sida caadiga ah ka dhigayso. Ma ogtahay in insaanka uu dhimanayo hadduu waayo boqolkiiba 20 biyaha jirkiisa ku jiraan? Ma ogtahay in ragga iyo dumarka ka wada siman yihiin dhammaan habdhisyada jirka marka laga reebo habdhiska taranka, oo habdhiska taranka iyo xubnaha taranka ay ku kala duwan yihiin, inta kale way ka siman yihiin? Ma ogtahay in jirka insaanka laga heli karo curyaha birta kaasoo laga samayn karo qiyaastii ilaa iyo 7 musbaar oo waaweyn ayaa laga samayn karaa sida la sheegay ay saynisyahannada sheegeen. Daawadayaasheena qiimaha badan, qodobadii macluumaadka ku saabsan insaanka maanta intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Maalmo kale ayaan kusoo qaadan doonaa qodobo kale oo xiiso leh oo kuwan kasii xiiso badan. Haddaad ka heshay ama qodobka ka heshayna la wadaag, qodob hebel ayaan ka helay la dhahay. Haddii aad qodob hebel su'aal ka qabteedna hoos inoogu reeb, waan si fiican inaan kuugu sharaxaynaa, waan kaaga soo jawaabaynaa insha Allah. Billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.